Saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa taariikhda maansada Soomaalida. Maansada Soomaalidu waxa ay la kowsatay nolosha dadka xilligii ay maroodiyadu u adeegsan jirtay ciidanka dagaalka ay Soomaaliduna ka mid ahayd dadyowgii maroodiga ku dagaalami jiray, taasoo caddaynaysa suugaantii qaangaarka ahayd ee ay ka mid tahay tixdani. Maroodi 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 cadhoole, haddii col la sheego cadaadda ku meeray, hashii cusub waa tan. Xilliyadaas oo hadda laga joogo kumanaan sannadood, waayadii dambe ee ay hana qaaday magaalada, gobolladii iyo xeebaha ku teedsanayd, sahamiyyaashii Carabta iyo Shiinaha waxa ay ka qoreen waxyaabo badan oo ka mid ah ciyaaraha dhaqanka Soomaalida hiiladii 1200 sano kahor ilaa 1330 sano kahor. Tusaale, ninkii Carabka ahaa ee la odhan jiray Ibnu Battuta ama Cabdullaahi Maxamed Ibnu Battuta, oo noolaa intii u dhaxaysay 1340 ilaa 1369, una dhashay dalka Morocco, waxa uu sheegay inuu kala kulmay magaalooyinka xeebaha badda cas dhalinyaro qurxoon, xidhan oo ciyaaraya dhaqanka iyo bini-aadamnimada iyo cunidda maansada. Intaas wixii ka dambeeyay, waxaa taariikhda maansada Soomaalidu leedahay oo la xusaa bilowgii qarnigii 20-aad, taas oo weliba u badan dagaalkii labaad ee dunida, markii ay Soomaalidu ka qayb gashay ee ay bilaabantay maasadii gobonimo iyo waddaniyadda ahayd ee ku saabsanayd xorriyadda, kuna beegan hiiladii 1930 ilaa 1960 iyo wixii ka dambeeyay, taas oo ay xilliga maansada Soomaalidu isbeddel weyn ku dhacay, ee ay dhalan guurtay maansadii qadiimiga ahayd ee awoow soo taxnayd ee reer guuraaga degdeg ahna waxa ay bilaabantay suugaantii reer magaalka ee casriga ahayd sida balwadda iyo filimada. Haddii aad muuqaalkan la soo gaadhay, muuqaalka like saar, kana mid noqo asxaabta ku xidhan Mkmowga. Halkan waxaan kusoo gudbin doonaa waxyaabaha dhaqanka iyo wixii hore oo dhammaan. Haddii aad xiisaynayso muuqaalka, like saar.